السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Assis TV show. ساد عنوانك كأركيسان مانتا وحويان صفة simple و natural إن شاء الله بدن كده natural ووفي عن ميكابك سلسك بإيو إن شاء الله. أنا واستعماله مركزته إن شاء الله دات كان ربنا لو ذاقو سي وقف إيديستان سداتش عشان دواتو continue فضلا watch. Okay, welcome back. So video waxaan jeclaad insha Allah inaan uga faa'iideysto kulleyba makeup-ka waan iska bi'inaya waa makeup-kii videogii hore anigu saan insha Allah isaga bi'iyo maqaarkana u fiican insha Allah inaan idin la wadaago waxa laga yaabaa dadka badankoodu inay iskaga meedhaan face wash ku meedhaan face wash kaliya weliga face wash dad maanta dhan ka xumbaysiiso isku facsayso ka wada meedhi maayo makeup-kii haba yaraatay ka wada meedhi maayo marka adigu waxa ugu fiican oo burburiya makeup-ka oo ka dhamaynaya maxay ahayd saliida okay ana hal xabad duqsiya meesha cararayso dhibtay okay meel lab ay ka baxdan ma garanayso saliid ayaan anigu ku bi'iya makeup-ka because saliid waxay leedahay awood ay ku burburiso oo ku dhalaalinaysa muxuu ahaa makeup-kii so badanaa waxaan ka bilaabay indhaha okay makeup-ka indhaha horta halkan anigii waxaan ku haystaa kan waxa weeye waa eye makeup removal waa ka lagu talagalo in indhaha inuu makeup-ka ka qaado aad buu u fiican yahay kan wad ogtihiin anigu ma iibsan waa kuwii hadiyada company-ga Estee Lauder iigu soo diray laakiin dee intaan haysto waan iska isticmaalaya markuu iga dhamaado bedelkiisu wuxuu noqonayaa saliida iyo rose water ayaan ku bedelaya waayo waxa la rabaa u fiirsada weligin indhihiina dushooda halkan eyeshadow la marinayo intan hoos oo dhami maqaarkaasi lama mid aha maqaarka wajiga intiisa kale uu ka khafiifsan yahay marka uma baahna in la xoqo okay hadii la xoqo wuxuu sameeyaa duduub degdega alright ajijido so inta indhaha hareerahooda waxa la rabaa makeup-ka in looga qaado si badan si naxariis leh oo wax markiiba si fudud kaaga qaadayo aan dhibayn maqaarkii inaad isticmaasho marka kuwani saasay uga qaadeen si yar oo fudud ba uga qaadayaan waxa la mid ah si yar oo fudud uga qaadaysa makeup-ka indhihi waa saliidii iyo markaad rose water ku dartid hadii ilaahay ka dhigo so number 1 sorry people fake lashes baan u xiranaa okay marmarka qaarkood so lasheski waa kuwa iyo kaalkan iga dhig so now indhihii waxay u diyaar yihiin in laga bi'iyo ilaa waxaan idinku samayn doonaa tan ayaan ku bi'in isha kalena waxaan ku bi'in doonaa rose water iyo saliid si aad u aragtaan inay tamartoodu isku mid tahay inay kala fiican tahay ama waa isku mid ama waa isku dhadhowdahan idin odhanaya so cotton pad ayaan ku shubanaya in yar cabaar baan saa ugu yarahaya waxaad moodaa makeup-kiiba inuu kaa muudsanayo ma fahamtay saa markaan cabaar ugu hayo horta wuu dhalaalinaya wuu qoynaya wuu dhalaalinaya okay waan ku yaraa wadwadaan suu wada gaadhgaadho hadda saasuun baan u saaray waad arkaysaan maan xoqin saasuunaan u saaray waa kaa wixii wuu ka nuugaya okay haddaan aayar ugu masaxo wuxuu soo qaadaya in intii hore ka badan okay marka si yar oo naxariis leh eed insha Allah ugu masmasaxaysa sunniyaha oo soo raaciya yan xiribaha alright waka imika kan eye makeup removal ku uu ka dhamaynaya makeup-kii boqolkiiba 95 wuu qaadaya hadduu wax ka tago inta yar wax kaaga filan hadhowto muxuu ahaa face wash-ki okay waxaan madmadoobaad arkaysaan waxa weeye waa maskaaradii way maskaaran mariya baalalka ka hor kuwayga maskaara mariya iyo xabagtii baalalka xabagtii baalalku ma dhalaalayso iyadu laakiin way meesha haysatay ka soo go'aysaa ma qabsanayso marka waxay noqonaysaa wax yar yar oo madmadoob oo soo raacaya cotton pad-ka okay
hal dhinac bay weli isticmaalayna eeg uu iga dhameeyey makeupkii oo dhan waad arkaysan indhaha dhinaca kalena waan isticmaala bas dhinacii kalena waa nadiif biyihiina wuu leeyahay halkan dhinac weliba waxaan sameeyaa skinkana waan soo raaciya waan iska raaciya si foundationkii qayb iga sii qaado kaa wada qaadaya because wuu buuxsanay laakiin waxbuu kaa sii khafiifinaya okay halkaa markay marayso dhinaca kale nuroga kaasaada faraqa u dhexeeya alright ishii baan ku celiyay si wixii kale ee ku harharay uu uga soo qaadmo maqaarkeena horta makeupka dee ma fiicna in la isku badiyo markasta la marsado laakiin marka dee dan u leedahaad marsato waxaa fiican sida ugu naxariista badanna inaad isaga rogto waxaan maqlay beri waxaa ii iman jiray hablo xaruntaydu markay ka furnayd dee magaalada waxay odhan jireen wejigooda waxay ku maydhaan markaan weydiiyana maxaad wejiga ku maydhaan waxay odhan jireen saabuunta dharka ta dharka Somaliland lagu sameeyo waan nixi jiro wallaahi okay taas waa taa mid nadiif oo kale nu qaadanayna tan waxaan ku sameynayaa waxaan ka buuxinayaa rose water okay markay qoydo ay dharagto saliid nooca doonto ku dar anigu taan iskaga dhaashtan ku daraya naarjiinta aad u fiican xaqiiqatan saliid kasta makeupka way dhalaalisa soo has oranina mid gaara jirta naarjiin macsar any oil waad isticmaali kartaan okay waan isku yara qabtaa si biyaha iyo saliiddu isu dhex galaan okay ucud bigu wada cabo okay markuu wada cabay the same thing ayaan xaggana ku sameynaya okay ku yara qabo soo maxan labada baydin tusayna isku mid yihiin si aan dadka badankooda aanay soo oran waa khasab inaad tan iibsataan khasab maaha waxaan idin tusay alternative-ku waxa way badiilka aad wadi arkaysaan mid maan dhaqaajin saasun baan ugu hayay alright wixii oo dhan u jijabinaya u burburinaya kaasoo wada qaadaya labada liide mido waxa way baalalkii xaggii sare xaggii hoose qalinkii marsana okay sidii tii hore marka aragtay inuu wada dhalaalay makeupkii qunyar ugaga masax waxaaba laga yaabaa inay tan aad moodaaba inay ka awood badan tahay tan kale baalalka dusha eeg maqaarka ma xuqayo baalalka dusha ka yara masaxaya si xabagtii iyo maskaaradii aan uga masaxo okay waxaas waa xabagtii laakiin waxa oran dumarku maxay iska dhibayaan baro maxay waxaasoo dhan u marsanayaan hadday wixii hadhowtana haddana ay dhib tahay bi'iddiisii okay guys dhinac kaliya wali marayo waad arkaysaan dhinacii kale waa kan waad aragtaan dhinacii kale ayaan haddana wixii harhaaya kaga sii qaadaya okay iyo wixii foundation ah marka always waxa weeyaan makeup kastan u bi'i marka hore kadib ayaad face washkii ku maydhaysaa marka iminka oo kale boqolkiiba 95 makeupkii waynu bi'inay 2 midho cod bay u filaaday inta ugu dambaysa lipstick-ta raaciya okay okay so 2 midh ayaan makeupkii dhan ku bi'inay okay iminka wajigii diyaar wuxuu u yahay face wash so mar haddaan kijadii joogo aanan joogin musqushii waxaan ku maydhayaa madiibad baan biyo kusoo shubtay iyo bushkaygii lagu maydhi jiray face washkan anigu iminka isticmaalo waxa weeyaan Neutrogena
deep clean baa la yidhaahda waanay fiican tahay waxay u fiican tahay allahu mustacaan normal to oil skin wejiga saliidda layo kaska dhexdhexaadka ayay u fiican tahay maxay ahayd maasha allah aadna u xumbaynaysa marka wax badan loogama baahna intaa yar fartaan ku qaatay ka badan uma baahnin alright waa jeel oo kale marka gacanta intaad u qoyso in yar kaga yara xumbaysi halka waxaan diidayaa mar haddaan kaji jooga inaan meesha isku wada qooyo marka waxbaan yara fududaysanaya aniguna face wash wuxuu si yara burburinaya wixii ku harharay wejiga ee makeup bas labada talaabo haddaad qaado ta hore saliidda iyo biyaha ubaxa iyo face washkina ku xigsiiso khalaas wejigaaga xabad makeup kumay harin okay qaybta indhaha waan u dambaysiinayo because haddaan indhaha ka sabunta marixba arki maayada daqiiqad ka badan uma baahnin inaad ku samayso so tan way biyihii waan geliyay waan ka maroojiyey iyadaa soo wada qaadaysa biyo badan inaan isku shubo uma baahnin labadeeda dhinac markaan dhinac ku wada qaado waxbaan idin tusayaa soo ma caddaa xaggaasi makeupkii inaanu inaga wada bi'in markii inkastoo aynu badankiisii bi'inay ayaan idin tusayaa تقصد يا قبصها تبعوذ بالله اوكي جايز دينعا ودينعي انا مستعمالين دينعا ودينعي انا امك استعمال ماركي فاونديشن ميك اب يحبا يغو هرسنا ماركي سان انو بني نقضي وليو سفي عنها كاي يكون مضده والله هو فاونديشن ميران فاونديشن باودر باك بوحه اوكي حقا markaynu ku qaadno anigu tan cad waxaan u jecelahay waxay i tusaysaa wixii wajigayga ka soo qaadmay iyadoo midabyo kalena waan haystaa xabadan waan ka furay iyadoo midowba iyo bunni iyo kuwaasi aqligu maskaxdu baad ku garanaysa dee inaad nadiif tahay oo fahmaysa systemkii iyo talaabooyinkii markaad qaado laakiin ku tusi maayaan dee waxay soo qaadeen ka dhex muuqan maayo so okay dhinacan waan ka tegay imka dhinacan kale ayaan marinaya alright dhinaca waxaa laga yaabaa iminka inaanay waxba soo raacin ay taasina markaa ku cadaynayso inuu wejigi nadiif yahay makeupkii oo dhan aad ka dhamaysay wejigi maqli maysaan idinku xulay siib maaragtay markay wax nadiif yihiin siibsiibinayaan jiiq yidhaahdaan okay guys waa kan dhinacii imika dambe waa kan dhinacii hore waa kan dhinaca waxba mu soo qaadin marka wejigii waa nadiif iyaday saa tahay haddana waan maydhaya mar kale ayaan labada dhinacba ku celinaya khalaas marka wejigii dhag weeyaan waa nadiif wax makeup kugu hadhay ma jirto makeupka haddaan saani la isaga rogin maqaarka wuxuu ku keenaa dhibaatooyin aad u fara badan ay ka mid tahay daldalooladu inay awdmaan daldaloolada haddii awdmaanna waxaa imanaya finan iyo cabur maqaarka wuu caburaya inflammation buu sameynaya inflammationkii wuxuu isku kaa tusaya qaab finande okay wayna kaa maydhnay mar kale wixii saabuna ku hadhay face washa mid kala samayn kartaan haddii aan idin saliid haysanin mid kaloo isla hawshaa kuu qabanaysa saliidda oo beddelkeedii ku noqonaysa waxa weeye vaselinta
baasliintaba way burburinaysaa in yar haddaad marisaan wejiga biyihiina iyo cudbigiina ka dabageysaan ama tuwaal yaroo cudbiya. Okay guys, saasaynu ku dhammaynay nadiifintii wejiga. Ana waxaan iska sameeyay markaa rose waterkaygan ku buufiyo si aan usoo celiyo balancekii pH balancekii dib wejiga. imika waxay dry buu dareemaya markuu yara qalalona markuu yara qalno wuxuu dareemaya inuu u baahan yahay moisturizer. So mar haddaan gurigii joogo aan iska shaqaysanayo imika waxa weeyaan subax hawlo guri iyo qada iyo waxbaa sugaya. waxaan samaynayaa kan iyo saliid yar baan ku dhaashanay bas hawlahaygan insha Allah bilaabanaya. maanta dhantaas ku shubto masha Allah weeyaan. Okay, aad bi rose water ku ugu fiican yahay maqaarka. pH balance-kiisu soo celinaya, toner buu u noqonaya, wuu yaro qoynaya, wuu cabaya jirkii. anigu markaan isku buufiyo waxaan dareemay inaan dhaashtay baan dareemaya wajigii dhammaa. waxaad moodaysaa in uu cream cabay. qalaylka dhan wuu iga bixiyay rose waterku. marka dadka wajiga qalalan rose water noocu doono ha noqdo, isagoo qaruurada ku jira doono. haddaanad haysanin caagad yaroo si fiican kuugu buufinaysaa, isagoo dhaladiisa ku jira cudbigan oo kala iibsanaysa waad ku shubaysaa wajigii oo dhan baad ku masaxanaysaa. waa isku mid, same thing ayuu kuu samaynaya. Okay, saliideedii isku badin maayo weliba, waayo uma baahni wax badan, intaa u dhaafi maayo. afka wax kastood wajiga marsan afkiinana mariya. Excuse me. Okay, so inaka wax kastood wajiga marsan afka mariya, qoorta mariya, laabta mariya. Alright, intaas ma kala hadho. So guys, waa wajigiinka masha Allah tabaaraka Allah waa dhag iyo nadiif. lacag badan kuma baxayso markaad iska isticmaalayso waxyaabaha simple-ka ah. wajigaagina wuxuu helay nadiifin, daryeel nadiifin oo dhammaystiran oo fiican oonay waxba kugu harharin. ahmiyadda meesha laga rabo maxay tahay? muhiimaddu waa inaanu maqaarkii makeup ku harharin. waayo makeupka kugu harharay waa waxa hadhow kaa daba imanaya dhibaatooyinka kugu keenaya cimri degdega maqaarka, finanka, balance wajigoo khalkhala, pH-kiyo maaragtay wajigii wuxuu keenaya engeg iyo dhibaatooyin kale. qofba waxaan ku yiri siduu u arkaya calaa xasab skinkoodu noocu yahay. so insha Allah faa'iideysi fiican baan rajeynaya inuu kala baxdeen videoga. insha Allah saasi videoga dambe intaasna waxaan dan oranay fadlan subscribe ka haylaabina iyo gambaleelkii oo all aad toorataan marka u sareeya, like-ina fadlan igu taageera, comment-na ii dhaafa insha Allah. intaasaan idinka codsanaya iyo share codsi badan. intaa waa la israaciya, lama kala reebo. qofka subscribe hore u sameeyay like ku dhufaya share iyo comment-ka insha Allah. intaas waxay noqonaysaa qofkii videogii uu kusoo tabcay waxay u noqonaysaa u taageero insha Allah. saad baad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.